السلام عليكم وسابتان تكوا كحرم برتين يوتيوب تليجرام كانوا شافي داود مقالك wuxuu ku saabsan yahay goolli in aan backtesting ku sameeyo sida hore idinku sheegay waxa idin dhaha goolli mar walba backtesting aad ku sameysid wax badan ayaad hal ka fahmaysaa sidoo kale mar walba backtesting aad ku sameysid goolli waxaad ogaanaysaa jihada uu markaas sameyn rabo tusaale ahaan adeerta isbuuc adeerta dhamaaday goolli waa uu daatay marka haddii aad goolli backtesting aad ku sameysid sababtoo u daatay haddaad fahantid backtesting aad ku sameysid goolli waxaa kuu fududaanayso next week jihada oo goolli aadayo dhaqaaq walba oo markaas goolli uu sameynayo way kuu fududaanaysaa marka hadeerta waxaa soo fiiri doonaa goolli isbuuciyada hadeerta lasoo dhaafay dhaqaaq uu sameeyey sababtoo u dhaqaaqay jihadu aad jiha sax ma ahayd sidoo kale qaabka ku fahmaysid intiriyada waxa soo dhan ayaa isla fiiri doona insha Allah muuqaalkan ayaan ku tusi doona sidoo kale to muuqaal kale ayaa insha Allah in aad ka diyaar isku day doona oo goolli isbuucan hadda cusub jihadu aaday idinku faahfaahin doona balse laakiin muuqaalka wuxuu ku saabsan yahay goolli in aad backtesting ku sameeyo aad goolli wax badan ku ogaatid hadeerta waxaa joognaa time frame-ka 1 hour-ka waxaad geenaysaa time frame-ka daily mar walba backtesting aad sameynaysid taabmada waaweyn ayaa la geeyaa adeerta analyska ay saaran waa weekii hore isbuucii hore goolli markaa hadda fiirisid intaan kaliya hadda calaamadeeyay marka aad analyse garaysid waxaad ogaanaysaa goolli dhaqaaq uu sameynayo goolli waxa xiga uu sameynayo ayaad ogaanaysaa intaas kaliya marka analyse garaysid the next week waxa ku fududaanaya goolli dhaqaaq uu sameynayo waxaa jirta horta sawir idin la wadaagay meelati sagaal gool waxa idin dhahay sawirkaas sida aad u jeedid qaab ili duuf ahaan ayuu ku socdaa goolli hadeertaan correction-ka afraad ayaa dhiman in uu dhameysto and then markaas waxaa bilaabanaya idin dhahay lugta shanaad oo impulsiga ah goolli uu daadanaya sidoo kale taa correction-ka meesha uu ka soo laabanayo waa idii calaamadeeyay hadda muuqaalka marka waxa kugu tusaya meeshaas ay calaamadeeyay sababta uu calaamadeeyay adhaa goolli uu ku soo laabanaya ay qaabka ku fahmay hadda goolli marka timaadid hadda waxaa joognaa time frame-ka daily-ga ayaa joognaa meesha ay calaamadeeyay waa kana marka hadda fiirisid waxaad ogaanaysaa goolli in meeshii ay calaamadeeyay laga soo celiyay waa kana goolli meeshii ay calaamadeeyay in goolli laga soo celiyo oo ka soo daatay ilaa 700 oo bibis marka sababta meeshii uu calaamadeeyay qaabka ku fahmay oo kugu tusi doonaabo waxaad sameynaysaa waxaa jari doonaa suuqa ayaa jari doonaa si aa ku fahansiiyo ka soo qabo marka uu suuqa meesha marayay ada sawirka waa kanaabo sidaas caamul waabo adeerta markaad suuqa analyse gareynaysid muuqaalkan waa buubsii doonaabo si uusan muuqaal ku dheeraanin marka isku day in aad ku soo ceeshitid si aad u fahantid correction impulse sidoo kale tan hadeerta meesha laga celi meeshaan in laga celi inay saxan tahay ayadan waxaad ku fahmaysaa ku horta confirmation ayuu sameeyay oo buy ah rejection ayaa la siiyay bin bar ay ku xirmaday sidoo kale marka aad lacag analyse gareynaysid goolli kaliya ma aha lacagaha kale xitaa marka aad analyse gareynaysid mar walba waxaa la fiiriyaa waxa uu hore u sameeyay lacagta analyse gareynaysid mar walba waxay hore u sameysay ayaa la fiiriyaa oo dhanka leftiga ayaa mar walba la fiiriyaa dhankan ayaa mar walba la fiiriyaa wuxuu hore suuqa u sameeyay marka waxay ka saacidaysaa marka aad fiirisid meelaha laga celi karo meesha buy ka dhileed meesha uu ka soo laaban lahay suuqa waxa hadan ayuu ka saacidayaa marka hadeertaani meesha marka uu suuqa marayay waxaad ogtaa in inta ay tahay support adag oo goolli laga celi karo marka uu suuqa imaadana sidoo kale waa kana confirmation ayuu sameeyay oo buy ah and the next day buy qaadaleed suuq kor ay faa'iido ay ka sameeyay marka sidoo kale waxaa ku dhahay in suuq wuxuu ku socdaa impulse correction impulse qaab ili duuf ahaan ayuu ku socdaa sidoo kale taada correction kan socdo waa lugti afaraad koowaad labaad sidoo kale saddexaad waxaa socda correction ka afraad ayaa soo marka correction kan meesha laga soo celinayo waxaad ku ogaanaysaa liftiga ayaad fiirinaysaa
liftiga hadda markaa fiirisid resistance kugu soo dhow waa kana markaad calaamaysatid resistancegaas markaa calaamaysadid weli ma hubtid xitaa in resistancegaasi laga soo celi karo oo gool uu gaarayo sidoo kale waxaad ku fahmaysaa aniga waxaa isticmaalaa Fibonacci ayaa isticmaalaa Fibonacci marka wuxuu kaa soo celiyaa waxaad ogaanaysaa wuxuu kuu sheegayaa lacagta meesha laga celi karo sidoo kale shuruudaha Elliott wave-kan waxaa ka mid ah lugtaan labaad iyo sidoo kale meesha laga celiyay lugtaan afraad meesha laga celiyay in aysan isku soo dhawaan tusaale ahaan hadda lugta afraad meesha hadda laga soo celiyay oo hadda meeshaas marayso haddii kor soo aado ilaa ay meeshaas ay timaado soo dhex gasho area-dan lugtii koowaad laga celiyay soo dhex gasho Elliott wave-kaasi ma saxsan marka shuruudaha Elliott wave marka waxaa ka mid ah in meel dhexe ay ka soo laabato meel dhexe aysan gaarin area-daasi marka isku day in maxaa la Elliott wave-kii haddaadan wax ka fahansanin waxaa jira macnaheyn badan oo Soomaali sharxaya jira oo YouTube-ka aad ka helaysaa marka isku day in aad fiirisid sidoo kale haddaad wax ka fahmi weysa xitaa waa igu soo weydii kartaa qaybta aad dadka ku caawiyo oo support-ka Telegram-ka waa igu soo weydii kartaa waa kaa caawinaya insha Allah marka aniga waxaa isticmaalaa marka Fibonacci wuxuu kaa saacidayaa ku dhaha correction-ka meesha laga celinayo hadda markaa sidaas u saaratid area kugu dhow oo marka waxaa mar walba la fiirsadaa 38-ka iyo sidoo kaleeto 0.5-ka iyo sidoo kaleeto 618-ka saddexdaas meel ayaa laga celiyaa badanaa marka Elliott wave-kan shuruudihiisa waxay tahay lugtaan koowaad marka hadda cabiratid badanaa waxaa laga celiyaa correction-ka 618-ka iyo 0.5-ka lugtaan saddexaadna badanaa waxaa laga celiyaa 0.38-ka ayaa laga celiyaa ama 0.05-ka marka aad mar walba hortaro lacagta aan laas gareynayso sidoo kaleetona in maskaxdaada isticmaashid xirfadaad u leedahay suuqa isticmaashid hadda markaad waxaad u jeedaa 0.05-ka bountigaasi inuu dhex galay area ku dhaaya hadduu correction-kan meeshaas u gaaray Elliott wave-kaasi ma saxsan 38-kan sidoo kale fiiri 38-ka wuxuu dhex galay support-kan waa support adag oo gool laga celi karo marka 38-ka hadda wuxuu ku cadeynayaa in area-dan hadda support-ka aad calaameysatay in gool meeshaas uu gaari karo meeshaasna laga celinayo gool 0.05-kana uusan gaareynin sababta 0.05-kaas uu gaareen ku dhaan waxay tahay gool markaasi Elliott wave-kaasi ma saxsanaanay oo wuxuu dhex galayaa area-dii laga celiyay lugtii koowaad marka waxaa laga celinayaa qasab in laga celiyo 38-ka marka aad artaan markii suuqii tusaale ahaan fasaxno kale taabali aad dhahno waa kan aad artaan daboontii oo imaado sidoo kale gooldi wiigadii hore sidaa sheego correction badan oo galabo waa kana marka kana waa uu soo daato koodar meesha ayuu imaaday oo support-kii ahaa calaameysatay and then markaan si fiican uma uusan imaan laakiin mar kale ayuu ku soo laabtay sidoo kale xitaa hada goolli sida hore ma aha gool hadda waxyaaba uu sameeyay waxay tahay asagoo ku tusaayo confirmation buy ah ayuu sal u soo daadanaya midaa ina fahanti isku day hada goolli sida hore ma aha asagoo ku tusayo hadeertaani waadna fiiri kartaa confirmation buy ah asagoo ku tusanayo ayuu sal u soo daadanaya sidoo kale confirmation sal asagoo ku tusayo ayuu buy aadaya hada example hada waa kana markaan camal hada markaa jaro mar kale ayaa jari doona si aad ku fahansiin laakiin aad mar walba muhiim ta market structure oo hada waxa u jeedaa gool inuu ku socdo market structure oo saxan Elliott wave oo ku socdo laakiin waxa kale oo ku tuso aadan fiirinin hada markaa ku tuso suuqa aad jaro kale ta example ahaan
hadda markaan oo kale taa hadda markaa waa kana fiir waxa uu sameeyay meesha marar badan ayuu ku laalaabtay sidoo kale hadda ka dhalkaan hadda socdo meeshaas ayuu ku xirmaday oo hadda ka dhalkii kale sal ayaa ka furmaday hadda waa ku tusi doonaabo marka ka dhalkaan markuu meesha ku xirmaday waxa uu jeedaa in kan dal buuxo oo baay ku xirmaday sidoo kale rejection bin bar waxaad isleedahay ka dhalka kale oo xigo gooli baay ayuu aaday oo ilaa iyo tareenkaas uu soo taaba karaa ama ilaa iyo resistance-gaas oo kale oo liftiga marka aad fiirisid oo gaari karaa ayaad isleedahay ama tareen laaka ayuu jibi karaa ayuu aadi karaa marka deerta marka wuxuu sameeyay waa kana marka aad waa uu soo daatay sida ujeedid waa kaasa sel ayuu soo aado marka aad gool sida hormaa marka qaar wuxuu ku tusayaa asagoo ku tusaya candles bay ayuu sel u soo daaday markaasna muhiimad waxa saartaa market structure waxa uu suuq ku tusanayo suuq guud marka aad fiirisid hadda marka aad fiirisid jaadkaani suuqan inuu sel ku socdo ayuu ku tusayaa marka mar walbana oo hadda inuu doon train yahay marka ogaatid mar walba gool entry ay ka raadinaysid entrygaas ha noqdo entry sell marka waa uu soo daataba gooldi sidoo kale waxa ku tusi doonaa next week hadeerta aan soo dhaafay gool waxa ku dhacay ilaa iyo barteena Telegram trade ID soo dhiga ayaa jiro oo gool waxa ku dhahay ilaa iyo wuxuu daadanayaa 400 oo bibis ilaa iyo 400 oo bibis ayuu daadanayaa ku dhahay waa uuna daato oo targetkii waa uu gaaray sababta sidaas u dhahay qaabka ku fahmay waa ku tusi doonaa gooldi wiiga deertaani meeshan ayuu marayay areadas ayuu marayay wiiga deertaan areadas ayuu marayay areada hadeertaan ku calaamadeeyay waxaad arkaysaa inta fiiri waxaad arkaysaa in support resistance adag waliba sidoo kaleeto hadda marka dhinacaan jaro saa ku fahansiiyo dalkaas amalu ku xirmado jaadkiisa xitaa soo dhigabo marka hadda markuu sidaan yahay oo kale taa gool inuu ku sii fahmay waxa idin dhahay ewel gool wuxuu ku socdaa down train waxa dhiman in oo lugta shanaad dhaqaaqo lugta shanaad marka uu gool dhaqaaqayo waa kana meeshan ayuu ka soo bilowdo ewel gool waxa laga celiyay meeshan ayaa laga celiyay marka lugta shanaad targetku ugu yar oo laga soo celi karo waxay tahay ilaa areadan inay timaado lugta shanaad ilaa areadaasi marka ay timaado waa targetku ugu yar oo gooli laga celi karo laakiin meelaha mar walba meelahan ha ku laalaabto laakiin gooli waxa qasab ilaa areadaas uu imaanaya koo midaas ay ku fahmo gooli qasab in ay tahay in uu areadaas imaanay labo meesha oo maraya gooli ee tahay meel resistance adag uu soo jibiyay gooli sidoo kale tan xitaa confirmation ayuu sameeyay oo hadda marka ku tuso waa kana waxa uu jeedaa in rejection bin bar ayaa la siiyay rejection ayuu sameeyay oo gooli ku tusanay in uu daadanayo marka gooli sidaas uu dhahay sell way ilaa 400 bis ayuuna ahaaba hadeerta marka cabiro ilaa 400 bis waa saa u jeedidba marka goolina waa uu daataba hadda marka baleedaho gool waa kaas waa uu daatay ilaa 400 bis si nadiif ah ayuu daatay marka sababtaas uu dhahay midaas waa oo gool waxa ogaay in targetkani ay qasabtaa in uu gooli imaanayo meeshan areadaasi sidoo kale iyo confirmation kaas oo ay tusay iyo sidoo kale resistance gaasi intaas kaliya aa ku fahmi gooli in uu daadanayo tan already waxa ogaa gooli in uu down train yahay oo iluu deefna uu ku socdo oo lugtii shanaadna ay dhiman tahay midaasna waa ogaa marka sidoo kale waxa ku dhahay gooli qoraal yar oo idin la wadaaga jiro oo gool waxa idin ku dhahay gool mar walba kursi aado oo gool mar walba buy soo aado
adigu waxay ku tahay fursad sel ah entry sel ah hadda golli marka hadda waxaan dhanka wada qaado si aan kuu fahansiiyo 4 hourka hadda marka ay imaado dhiiga marka ay imaado daily isbuuc adeertaan resistance marka hadda cabirto hourka marka ay imaado marka waxaa idin lahaa golli mar walba fursad waxaa idin lahaa golli mar walba fursad golli sel waaye fursad sel ah karaadi sidoo kale waxaa idin lahaa mar walba golli kor soo aado adiga intiri fursad sel kale ayay ku tahay marka example ahaan hadda waxaa kugu tusayaa waxaa jirtay maalinta arbaca maalinta khamiistii ahayd golli in news oo kor usoo qaado hadda haddaa ku tuso waa kanaaho news golli marka kor usoo qaado waa kanaaho 4 hourka adeerta waxaa ujeedaabo in rejection uu noqdo oo kor uu soo aaday isla markiina intuu ka dhalkii saacadiisii dhamaanin waa uu soo laabto uu soo daatay sidoo kale mid kale xitaa wuxuu ka soo baxay khamiistii arbacadii adhehe khamiistii arbacadii oo kasoo kala baxabo xilliga New York session kor markuu soo aadaa si xitaa waa uu soo laabto marka wana habarka markaa geesid ayaa si fiican u fahmaysaabo marka waa kanaabo mid waa kanaabo newskii kasoo baxay kor markuu soo aaday eeridii wuxuu imaadaba oo maxaa lahaa resistancegii cabirnay dailiga ayuu imaadaba marka hadda 1 hour ka timaadid marka aad mar walba waxaa sameynaysaa newska markuu tusaale ahaan oo kaleeto isbuucan golli sel ku dhaw weega isbuucan waa sel golli mar walba kor soo aado oo kaleeto buy oo kaleeto sida hadda midaan oo kale dhacdaba ka soo qabo golli meeshan ayuu marayay hal mar ayuu soo booday aad marka andan aad waxa ogta horta mar walba inuu golli sel yahay buygaan oo hadda soo aadanay newsta oo kor soo aaday golli ay qasabtaa in uu soo daadanayaba marka waxaa sugaysaa saacadda markaas socoto 1 hourka tusaalehaan hadda ka dhalkaan markuu soo booday saacadda markaas socoto markaas sugatid waa kana the next ka dhal oo furmaday golli waa kanaabo next ka dhal waa ka qaadan kartaa sel waa u qaadan kartaa kadib wuxuu sameeyay waxyar ayuu buy soo aaday waa uu soo daatay sidoo kale maalintii khamiistii ahayd newskana ka soo baxay على dad badan markuu newskan soo baxay in golli jihadi uu bedesho golli jihadi ma uusan bedelan inuusan jihadi bedelan waxaad ku fahmaysaa sida hore kuugu sheegay daily waxa ku dhahay golli taageero lagu soo celi karo waa kana hore kuugu calaamadii target kaas waa ku dhahay golli target kuugu yar oo lagu soo celi karo lugta shanaad meesha ay gaarayso marka aad markuu newskan ka soo baxay golli in still oo sel yahay oo selsiya waa ogtahay sidoo kale news inuu ka soo baxay waa ogtahay oo newskani oo soo laabanayo golli oo jihadii sax saneed oo ku soo laabanayo markuu newskii dhamaado marka waa kana kandalkaani waxaa sugaysaa ku dhaay inta uu ka dhamaanayo markaas socdo 1 hourka hadda waa kana kandalkii markuu uu dhamaayo next kandal golli waa uu soo daatay next kandal sel hadda u soo qaadatid isla markii golli waa uu soo daatay sel ayuu soo aaday sidoo kaleeto golli targetkiina waa uu gaaro 400 oo BBC oo isbuucan hadda marka golli kor ayuu soo aaday xitaa buygan waa ka faa'iideystaba oo group ay tahay sorry buy waa ka faa'iideystaba ilaa 200 oo BBC laba kanda oo same oo rejection ayuu sameeyay sidoo kale area oo joogan waa area hore looga celiyay oo adkeed oo support midaas ay ku cadeynayso in golli laga celin marka insha Allah muuqaalka ay taas ay ku ekay doonaabo in muuqaalka oo dheeraado ma rabo insha Allah next muuqaal kale ay sameyn doona oo ah golli jihada oo isbuucaani oo aadayo insha Allah muuqaalka xiga ayaa ku faahfaahin doonaabo. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.